dilka alxusein calayhi salaamu waxaa amray in la fuliyo gaal kirishtaan ah oo aad moodo inuu ingiriis ahaa. yaziid bin mucaawiya la taliyihiisu wuxuu ahaa nin kirishtaan ah oo la yidhaahdo sir john oo aabbihiis mucaawiya la taliye u ahaan jiray oo kula taliyey inuu annucmaanu bin bashiir bedelo oo uu ziyaad bin abiihi guddoomiye ciraaq uga dhigo si uu ugu keeno madaxa alxuseynu calayhi salaamu. sir john wuxuu yaziid ku yidhi hadduu mucaawiya arrin amarkaa siiyo ma yeeli lahayd? yaziid wuxuu yidhi haa. sir john wuxuu yidhi haddaba ziyaad guddoomiye ka dhig, isagaa madaxa alxusein kuu keenaye. marka sir john warkaas ma mucaawiya ayuu ka maqlay ama kala dardaarmay? taas meel cidlo ah kama keenine oo iskama oran. haddii kale wuxuu amarka mucaawiya muxuu amarka mucaawiya meesha u soo geliyey? hadduu mucaawiya sir john sidaas ku yiri soo haddaba mucaawiya ma dilin alxusein. yaziid hooyadiis waa maysuun bintu baxdal oo kirishtaan ahayd oo waxay mucaawiya ku tiri ifur. markaasuu furay oo ay wiilkeeda yaziid arliga tolkeed u qaadatay. yaziid marar dhif ah ayuu aabbihiis mucaawiya u imaan jiray. markuu aabbihiis dhintayna maba joogin ee wuxuu yimid 10 maalmood kadib oo markaas dadkoo u jeeda qabrigiisa ku tukaday. yaziid waxaa la taliyo u ahaa sir john oo wiilkiisana yuxanna la oran jiray. wiilkiisa khaalid bin yaziid waxaa macallin u ahaa nin kirishtaan ah. yaziid wuxuu aad u cabbi jiray khamrada. markaasuu aabbihiis mucaawiya kula taliyey inuu maalintii isku ekaysiiyo nin suuban oo saalix ah si ay sumcadiisu u fiicnaato, oo boqornimo ayuu u diyaarinayey si ayan saaxiibadiis ka jeesan iyo dadkuba habeenkiise uu wuxuu doono falo oo khamrada cabbo, dhilaysto iyo wixii la mid ahba. ibnu kathiir wuxuu albidaaya walnihaaya ku wariyey oo alimaam atabraani ka wariyey gabayguu mucaawiya wiilkiisa yaziid kula taliyey kanoo khamrada aad u cabbi jiray, xaaraantana dhex dabaalin jiray, isagoo ka waaninaya inuusan dadka arkin isagoo sidaas ah oo sakhraan ah. wuxuuna kula taliyey gabaygan soo socda: أنصب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب حتى إذا الليل أتى بالدجى واجتاحت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب كم فاسق تحسبه ناكسا قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب ولذة الأحمق مكشوفة يشفي بها كل عدو مريب. تحاس معنى هذا وحويه maalintii ku dadaal sidaad kor u ahaan lahayd, una sabir ka fogaanshaha midkaad jeceshahay oo kuu dhow,
oo ah kuway habeenkii xaaraanta wada dhex dabaashaan. markuu habeenku mugdigiisa wax walba daboolo oo ayan kuu jeedinna kuwa dadku wuxuu samaynayo arka. habeenkii waxaad doonta samee, oo habeenku waa maalinta midka caqliga leh. meeqa faasiq ah ayaad markaad aragto u malaynaysaa inuu suuban yahay tukada oo habeenkii sameeya wax lala yaabo. habeenkii ayaa daahiisa madow ku qariyey, markaasuu wuxuu ku hoyday amni iyo nolol raaxa leh. macaansiga adduunkuna waa loo wada jeedaa, uuna ku farxaa cadow kasta oo caqli leh. barbaarintaas mucaawiya wiilkiisa waxaad balbarbar dhigtaa siduu cali u barbaariyey calayhi salaamu wiilkiisa alxasan iyo alxusein, oo wuxuu yidhi يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وانا آيات وانا لبدا آيادود بقول يسيديد سورة النساء ومعنى هذا يهي waxay isku qarinayaan oo ka xishoonayaan dadka, iskamana qarinayaan oo kama xishoonayaan ilaahay oo la jooga markay dabirayaan oo ku dadaalayaan wuxuusan raalli ka ahayn. ilaahayna waxaad falaysaan oo idil uu wada og yahay. waa aayadda 108 ee suuratu annisaa. alxusein calayhi salaamu iyo koox reer ciraaq ah. waxaa alxuseynu u yimid almusayab bin najabah iyo koox la socota oofsashada alxasanu dabadiis, waxayna ugu yeereen inuu mucaawiya casilo oo xilka ka qaado. waxayna yidhaahdeen waan ognahay ra'yigaaga iyo ra'yiga walaalkaaba. markaasuu wuxuu yidhi arjuu an yucطiya allahu akhii calaa niyatihi wa an yucطinii calaa niyatii fii xubi jihaadi الظaalimiina. waxaan rajaynayaa inuu ilaahay walaalkay niyadiisa wax ku siiyo, anigana niyadeyda wax igu siiyo, sidaan u jeclahay ku jihaadka daalimiinta. warinta abu jacfar moxamed albaqir dilidda alxuseynu calayhi salaamu. axmed bin janaab almisisi wuxuu ka wariyey khaalid bin yaziid alqusari oo ka wariyey camaar الطهني oo yidhi waxaan abi jacfar albaqir ku iri iiga waran dilka alxuseynu. markaasuu wuxuu yidhi waxaa dhintay mucaawiya. markaasuu alwaliid bin cutba oo ah guddoomiyaha almadiina u soo diray alxuseynu si uu baycada uga qaado ku saabsan boqornimada wiilkiisa yaziid isaga dabadiis. markaasuu alxuseynu wuxuu alwaliidu ku yidhi ii kaadi. markaasuu u naxariistay oo u kaadiyey. markaasuu alxuseynu maka aaday, halkaasoo ay ugu yimaadeen ergooyinka dadka reer ciraaq, reer kuufa ee dalka ciraaq, ayagoo uu alkuufa guddoomiye ka yahay annucmaanu bin bashiir. markaasuu alxuseynu wuxuu alkuufa u diray in adeerkiis muslim bin caqiil
bin abi طaalib bin cabdilmuطalib bin haashim calayhi الsalaamu kuna yidhi u tag oo soo ogow inay waxay ii soo dhigeen ay run tahay oo ay run ka tahay iyo dhab. markaasuu muslim wuxuu watay 2 nin oo dariiqa tusta una dhaqaaqay. markaasay miyiga ku haraadeen oo labada nin midkood waaba dhintayba. markaasuu muslim warqad u soo dhigay alxuseynu inuu safarkaas ka daayo oo ka cafiyo. markaasuu alxuseynu u soo dhigay amdi ila alkuufa oo ah alkuufa aad oo kama cafin safarkee sii socuu yidhi tag. markaasuu alkuufa yimid wuxuuna ku degay cawsaja ninka la yidhaahdo. markaasaa reer alkuufa u soo wada gurguurteen oo isugu yimaadeen oo ay markaas 12,000 oo nini ku baayaceen khaliifnimada alxuseynu oo doorteen. waa 12,000 oo nin oo reer kuufa ah. markaasaa waxaa ku kacay cubaydullaahi bin muslim oo markaas alnucmaanu ku yidhi waxaa ka kacay weeye waxaad tahay mid daciif ah. wuxuu ugu jawaabay inaan daciif ku ahaado ayaan ka jeclahay inaan mid ku xoog badan macsiyada ilaahay, mana ahi midka jeexaya sitir uu ilaahay sitiray. markaasuu hadalkiisaas yaziid u dhigay oo markaas yaziid u carooday. yaziid wuxuu u caraysnaa cubaydullaahi bin ziyaad oo ahaa guddoomiyaha albasra. markaasuu u soo dhigay inuu raalli ka yahay iyo inuu guddoomiye uga dhigay alkuufa oo albasra ugu daray oo labadoodaba uu guddoomiye ka wada yahay. wuxuuna u soo dhigay inuu muslim dilo. markaasuu cubaydullaahi isagoo wata madaxda albasra u soo degdegay oo yimid alkuufa isagoo wejiga duubtay oo aan la aqoonayn. markaasuusan majlis kasta marayn ee waa kan ilaa salaama ay ayaguna waa ilaa midkay ku yidhaahdaan wacalayka assalaamu wiilka rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi waaalih wasalam, ayagoo u malaynaya inuu yahay alxuseynu calayhi salaamu. markaasuu ku degay qasriga oo uu u yeeray mowle uu leeyahay uuna siiyey 3,000 oo dirham kuna yidhi tag oo dadka weydii midkay reer alkuufa baayaceen waxaadna tidhaahdaa anigu waxaan ahay qariib waxaana midka la baayacay u keenay maalkan si uu isugu xoojiyo. markaasuu soo baxay oo dadkana beer dulucsaday ilaa uu uga soo galo odayga baycada madaxda ka ahaa kanoo muslim u soo geliyey oo uu daraahiimta siiyey uuna baayacay kadibna uu noqday uuna cubaydullaahi u sheegay arrinka. muslim wuxuu u guuray daarta haani bin curwa almuraadi. markaasuu cubaydullaahi wuxuu yidhi muxuu yahay arrinka haani oo uu noogu imaan waayey. markaasaa waxaa soo aaday moxamed bin al ashcath iyo kayrkiisba oo yidhi amiirku wuu kaa waraystay. markaasuu soo raacay oo u yimid ayadoo uu la joogo qaali shurayx. markaasuu cubaydullaahi wuxuu yidhi waxaad aaday oo ku dhacday waxaad ka hato.
markaasuu markuu salaamay ayuu wuxuu yidhi haaniyow mee muslim wuxuu yidhi ma ogi markaasaa waxaa u soo baxay ninkii daraahiimta bixiyey oo uu markaas arkay inta xaalka gaartay oo uu yidhi markaas amiirow wallaahi inaanan anigu gurigayga ku marti qaadine oo ugu yeeran laakiin isagaa iska yimid oo naftiisa aniga isoo duldhigay wuxuu yidhi ii keen wuxuu yidhi wallaahi haddaan labadayda cagood hoostooda wallaahi hadduu labadayda cagood hoostooda ku jiri lahaa inaanan kor uga qaadeen si aad u qaadato weeye markaasuu ul ku dhuftay oo u dhaawacay markaasuu haani wuxuu ku foorarsaday seef uu sitay nin askarta ka mid ah oo uu galka uga siibto markaasuu ka celiyey markaasuu wuxuu yidhi dhiiggaagu waa xalaaloobay markaasuu xabisay markaasuu warku wuxuu u duulay oo gaaray qabiilka madxij markaasaa waxaa albaabka qasriga yimid jalaba khabarkuna wuxuu isagana gaaray muslim oo uu markaas inta la jirtay oo caatifad u haysay isugu yeeray markaasaa waxaa isugu yimid 40,000 oo nin markaasuu diyaariyey oo uu qasriga xaggiisa aaday markaasuu cubaydullaahi wuxuu u cidiray madaxda dadka alkuufa oo uu agtiisa isugu keenay uuna awaamir siiyey markaasay qasriga korkiisa waxay kaloo soo hadleen ragga tolkooda iyo cashiiradooda ah ayna ugu yeereen inay muslim ka soo tagaan markaasuu raggu muslim ka kala xaluushaan oo ka kala tegaan si qarsoodi ah oo ka siibtaan ilaa oo ay muslim agtiisa ku haraan ilaa 500 oo nin muslim wuxuu warqad u dhigay alxuseynu inuu soo degdego markaasuu markuu habeenku soo galay ayay intii kalena ka kala tageen oo uu muslim keligiis soo haray isagoo dariiqyada marmaraya markaasuu wuxuu yimid guri oo ay haweenay u soo baxday uuna ku yidhi biyo i waraabi markaasay biyo siisay oo uu cabbay kadibna gurigay gashay ayna ku jirtay intuu ilaahay doonay inay ku jirto kadibna ay soo baxday waxayna aragtay isagii oo albaabka jooga markaase waxay tidhi midkaagaanow meeshaad fadhido waa meel laga shakiyo ee kac wuxuu yidhi anigu waxaan ahay muslim bin caqiil ee ma haysaa meel aan ku hoydo waxay tidhi haa oo gurigeeday gelisay haweenta wiilkeedu wuxuu mawle u ahaa maxamed bin al ashcath oo markaasuu mawlihiisii u tegey uuna u sheegay markaasuu cubaydullaahi wuxuu muslim u soo diray askar markay yimaadeen ayuu muslim u soo baxay oo seeftiisa galka ka siibay uuna la dagaalamay markaasuu maxamed bin al ashcath wuxuu siiyey amni oo uu markaas isdhiibay markaasuu wuxuu u keenay cubaydullaahi oo qoorta ka gooyey meydkiisana dadka u soo tuuray
wuxuu kaloo isagana dilay haani. wuxuu yidhi alxuseynu wuxuu ku yimid qoraalkuu u dhigay muslim, markaasuu markuu marayo meel saacad u jirta alqaadisiya ayaa wuxuu la kulmay nin alxuseynu ku yidhi noqo oo gadaashayda khayr ugama soo tegin. markaasuu wuxuu ku hamiyey inuu laabto. markaasay muslim walaashiis waxay yidhaahdeen, walaalihiis ragga la dhashaye waxay yidhaahdeen wallaahi noqon mayno jeer aan aargoosanno amana la dilo. markaasuu alxuseyn wuxuu yidhi laa khayra fi lxayaati bacdakum, noloshuba adinka dabadiin waa haddii la idin dilee khayr ma laha. markaasuu safarkiisii ku sugnaaday. markaasaa waxaa ka hor yimid fardoolayda cubaydullaahi oo uu markaas ayaga ka leexday, una leexday xagga karbala, una dhabarkiisa yeelay qasiim aan loo soo dhaafi karin, si uusan uga dagaalamin hal weji mooye oo hortiisa ah. waxaana la socday 45 fardooley ah iyo qiyaas 100 nin oo lugley ah. markaasaa waxaa yimid cumar bin sacad bin abi waqaas oo cubaydullaahi taliyo uga dhigay ciidankiisa, waa ciidanka ka hortegahayo la dagaalamaya weeye alxuseyn calayhi salaam. cumar wuxuu weydiistay cubaydullaahi inuu xilkaas ka cafiyo oo ka daayo, wuuse ka diiday. cumarkan waxaa dhalay sacad bin abi waqaas radia allahu tacaala canhu wa ardaa, nebi maxamed abtigiis sala allahu calayhi waaalih wasalam. waxaana loo soo diray inuu dilo wiilkii nebigiisa calayhi salaatu wasalaam. markaasuu alxuseyn wuxuu cumar ku yidhi iyo askartuu wato, ikhtaaruu waaxidatan min 3, ima an tadcuunii faaxlaqu biاthuguuri, wa ima an ahaba ilaa yaziida ow aruddu ila almadiina. 3 midkood doontaan ka doorta. 1 dariiqayga ka wareega aan iska tagee oo aan xagga xuduudda dowladda islaamka iyo xagga buuraaleyda aadee. 2 inaan yaziid aado oo ah boqorka dowladda islaamka oo degan dimashq arliga suuriya. 3 inaan almadiina la ii celiyo. markaasuu cumar taas ka yeelay, uuna u dhigay cubaydullaahi kanoo ugu soo jawaabay maya, oo karaamo ma laha jeer uu gacantiisa geliyo gacantayda, oo waxaa weeye uu xukunkan ku xukumo ogolaado. horaan uga soo warannay cubaydullaahi aabihiis ninkii wacalka ahaa oo uu dhalay abu sufyaan bin xarb. markaasuu cumar taas ka yeelay. markaasuu alxuseyn marka loo keenay fariinta cubaydullaahi wuxuu yidhi laa wallaahi, may wallaahi inaanan taas yeelayn, waa inaan xukunkiisa ku soo dego. markaasuu dagaalamay, asxaabtiisana la dilay, ayna ka mid yihiin 12 dhallinyaro ah oo ahlulbeytka ka mid ah. wuxuu yidhi waxaa timid fallaar oo ku dhacday wiil yar oo uu dhalay
xuseen oo markaas dhiigga ka tirtiray isagoo leh allaahumma axkum baynana wa bayna qowmina dacuuna liyansuruuna huma yaqtuluunana ilaahayow annaga iyo qowmkeenna na kala xukun waa reer ciraaqi oo way noo yeerteen oo noo sheegeen inay noo gargaariyaan kadibna wayna dilayaan kadibna wuu dagaalamay ilaa isagana laga dilo calayhi salaamu waxaana dilay nin u dhashay qabiilka madxij oo madaxiisa gooyey una geeyey cubaydullaahi wuxuuna yidhi awqir rikaabii dahaban faqad qataltu almalika almuxajaba qataltu khayra annaasi umman wa aban ku qiimee waxa faraskayga saaran dahab waa madaxii xuseen buu ka wadaa calayhi salaamu oo waxaan dilay boqorka la ilaashee waxaan dilay dadkoo idilkan ugu khayr badan xagga hooyo iyo xagga aabbeba markaasuu cubaydullaahi wuxuu ergo ahaan u diray yaziid oo wuxuu madaxa ka qaaday alkuufa oo arliga ciraaq ku taalla wuxuuna geeyey dimashq ee arliga suuriya isagoo madaxa wata oo uu markaas u yimid hortiisa dhigay iyadoo uu la joogo abu barza al aslami wuxuu la joogaa markaas yaziid